بسم الله الرحمن الرحيم. Physics 2018 iyo 2019 oo soo taamaad insha Allah ka shaqeynaa labada imtixaanba. Qaybta koowaad aan ku hormarno oo 2018 ka ah. Qaybta koowaad waa gobogay. Su'aasha koowaad kuwaan soo socda keeba iskaar quanti waa pressure-ka. LDR maxaa loo soo gaabiyo waa light dependent resistance. Kuwaan soo socda keeba cell-ka calaamadiisa waa B number B. su-aashan xigta waxyaabahan soo socda convex lenskeba u taagan yani light refraction lightka oo convex lensiga u sameynayo waa D. su-aasha xigta wiilkan afartaa jeer oo floorka ama sagxadda uu ku taagan yahay ama ku jiifo keebaa uu pressureka ugu yar ku hayaa waa number B. su-aashan xigta perpendicular forceskan waxay ku tusayaan waxaa loo isticmaalay bull object in lagu riixo marka waxaa lagu yiri magnitude-ka resultant force-ka sheeg. magnitude resultant force maxaa lagu helaa waa x direction iyo y direction oo isku wargareysan oo laisku geeyo waaye. x direction waxaa haystaa waa 4 square plus 3 square marka 4 square waa 16 loo geeyey 9 waa 25 square ka saar waa 5 marka D weeye jawaabta saxda ah. su-aasha xigta x maxaa ku dhacaya haddii mataqaanaa mid saddexaad meesha x lagu xiro waxaa ku dhacaya meeshan waa number B sorry number maahan B weeye sababta maxay tahay brightness-ku wuu siyaadayaa mid saddexaad marka lagu xiro ifka ay dambadahan sameynayaan waa badanaya. su-aasha xigta the loudness of sound wave depend wuxuu ku xiran yahay yani codka inuu yani codka wuxuu ku xiran yahay wave-ka amplitude ku xiran su-aashan soo marnay. su-aasha xigta approximate indicate arrow value-ga arrowgan uu sheegayo sheeg halkan markaa 0.1 baa kugu qoran 0.1 halkan 0.025 halkan waa 0.05 halkan waxay noqonaysaa marka waa 0.075 marka dhiibaa sax. su-aasha xigta an object float in water object ama walaxdu waxay dul sabaysaa biyaha marka relative distance greater than 1 uu ka weyn yahay distance uu ka weyn yahay 1 ka weyn yahay relative distance waxa weeye waa shayga ay dul sabaynayso markuu density-giisu uu weyn yahay. su-aasha xigta oo su'aalaha caadiga su-aashan waxaa lagu yiri figurkan waa fasal wuxuu ku tusinaya electrical devices connector ku xiran main supply marka waa step factorka cause gareeya in heating effect-ga waa maxay waa heating element-ga baa sababa. waxaa sheegtaa 3 pin plug has 3 wires buu leeyahay saddexda wire kala sheeg waa live wire iyo neutral wire iyo earth wire qof waa garanaya tan. what is the function of heating element heat element function waa converts electric energy into heat energy oo bedelaan electrical energy waxay u bedelaan heat energy. su-aashan xigta the heating element of electric kettle has power wuxuu leeyahay 2400 watt ah marka loo isticmaalo 240 voltage supply kafada waxa xisabsan current following current-ga qulqulasa current-ga maxaa lagu helayaa power loo qeybiyo voltage-ka 10 ampere ku soo baxay resistance maxaa lagu helayaa resistance waxaa lagu helayaa voltage-ka oo loo qeybiyo current-ga 24 ampere resistor baa ku soo baxaya. student-ga wuxuu isticmaalay modern plastic electrical kettle to put so u dhigo to the socket right he could not find Musa helin an earth wire. Why was this not fitted with earth wire? It has plastic casing case wuxuu leeyahay plastic ah yani dahar plastic uu leeyahay which cannot give shock and live wire cannot touch casing live wire kuna ma taabto casekaas. su-aasha labaad diagram-ka wuxuu ku tusinayaa circuit oo isticmaalaya symbol-ka connect with an ammeter and voltmeter to measure voltage of the lamp respectively. su-aalahan baa laga weydiiyey su-aasha koowaad name the component
labeled letter Q diagram. Q maxay ku tusisaa waa diode waa la garanayaa taas. Su-aasha xigta waxaa lagu yiri sound cannot recorded unless both play button and record button of the radio are respectively simultaneously. Soundiga lama record karayn karo ilaa labada play button iyo record buttonku yani labadaba record buttonka iyo play buttonku inay simultaneous ay yihiin ma isku mid. The circuit diagram for this and its truth table are shown xagana ka muuqdaan. Truth table ka muxuu noqonayaa? Truth table wuxuu noqonayaa marka labada laambadood ay daaran yihiin bas u daarmi kara inta kale uu dansan yahay. Sababta waxaa lagu yiri yani inay simultaneous yihiin mooye si kale looma record karayn karo. Marka labada waa inay isku mid yihiin oo wada daaran yihiin. Marka noocan ka ah su-aasha lagu weydiiyo waxay tahay which logic gate iyo table show table aan keeba ku tusaya waa and gate buu ku tusinayaa sababtoo ah hal mar buu daaran yahay oo marka labadu ay daaran yihiin. waxyaabahan erayadan soo socda meelaha bannaan ku buuxiya resistance decrease when light falls on it LDR bagalisa stores electrical charges capacitor wire is used an indicator lamp on computer and radios or LED-ka light emitting waxaa loo soo gaabiyey. Su-aashan saddexaad diagramka wuxuu ku tusinayaa magnet moves towards a coil. Marka waxaa lagu yiri what's happen maxaa dhacaya to the coil as magnet moves towards the coil induced current waa dhacaya. Su-aasha xigta what happen maxaa dhacaya to the needle ka maxaa ku dhacaya of galvanometer-ka if haddii magnetic is moved fast hadduu xoog u dhaqaaqo deflection baa ku dhacaya. The magnet is moved away from the coil maxaa dhacaya haddii magnetka laga fogeeyo waa deflection in opposite direction kale deflection u sameynaya. Su-aasha xigta magnet is held stationary inside the coil coilka dhexdiisa haddii si stationary loogu hayo waxaa dhacaya stop u istaagaya ama not current no current way meesha no current will flow wax current iyo maqluuqo meeshaas. waxaa lagu yiri poliska indicate B iyo Q ay sheegayaan waa maxay. B maxay sheegaysaa? B waxay sheegaysaa waa south sababtu maxay tahay yani dhankeedu u socdaa. Q-na maxay sheegaysaa north xagga u socdaa waa dhanku kasoo socda wey Q marka north dhanku kasoo socda wey mar walba waxaa la yiraahdaa. Su-aasha xigta transformer baa wuxuu leeyahay 100 turns in its primary coil secondary-giisuna wuxuu leeyahay 300 turn voltage-giisuna waa 30. marka waxaa lagu yiri step down miyaa mise waa step up waa step up sababtu maxay tahay primary baa ka yar secondary uu weyn yahay oo yani uu turns badan yahay ama voltage badan yahay step up way. hadduu primary uu badan yahayna waa step down. Su-aasha xigta calculate the output voltage of transformer output voltage ka yani xisaabi waa lagu dhahaa output see loo xisaabiyaa waxaa loo xisaabiyaa qaacidadan isticmaalaysaa VS voltage in secondary waxaa lagu helaa numbers in secondary oo loo qeybiyo numbers in primary oo lagu dhuftay voltage in primary. marka yani waa ku bedelanaysaa 300 baa haystaa secondary-ga waxa la yiraahdo numberska oo loo qeybiyo 100 oo ah turns-ka ama numberska in primary-ga lagu dhuftay 30 oo ah voltage-ka primary 9 voltage ku soo baxay. Su-aasha xigta diagramkan wuxuu ku tusinayaa iron nail. marka su'aalahan baa laga weydiiyey method-ka oo magnification lagu sameeyo electrical method aan ahayn waa stroking why iron is preferred than steel electromagnetic because waxaa sababto iron is magnetized easily yani fudud magnet noqotaa magnetized loogu sameeyaa. Su-aasha afraad heat iyo temperature waaye diagramkan baa lagu yiri wuxuu u dhexeeyaa relationka u dhexeeya volume iyo temperature of gas buu ku tusinayaa. marka waxaa lagu yiri state Charles law of gas Charles ninka la yiraahdo sharcigii uu gaaska u dejiyay maxay ahayd fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature saas loo soo gaabin karaa yani gas cayiman
gaaska cayiman yani gaas yani gaasku mar walba wuxuu proportional leeyahay absolute temperature wuxuu leeyahay proportional hadduu mid bato asna wuu la badanaya hadduu kan bato kan kale waa badanaya hadduu yaraado waa yaraanaya kan kalena maxaa dhacaya haddii kinetic energy maxaa ku dhacaya haddii molecular gas particles as temperature haddii siyaadaan maxaa ku dhacaya qaacidadii halkan hadda kusoo sheegnay maxay ahayd proportional bay isku yihiin soomaa hadduu molecularska ay bateen temperature maxaa ku dhacaya asna wuu siyaadaya increase baa ku dhacaya SI unit energy maxaa weeye waa joule su-aasha xigta halkan valuumka waxaa lagu siiyey 60 centimeter temperatureka waxaa lagu siiyey 7 waxaa la temperature labaadna waxaa lagu siiyey 127 maxaa kaa maqan volume 2 baa raadi lagu dhaha marka waxaa ka horeysa temperaturekan waxaa u bedeshaa kelvin u bedel si kelvin ugu bedesho temperature maxay isdheeriyeen 224 baa waxa u geynaysaa yani intaa haysatay 224 oo loo geeyey celsius waxaa kusoo baxsa 200 la 300 aan dhaha meesha 300 waaye sorry 300.15 k kelvin ama waxaa dhigi kartaa 300 oo kusoo kaabsan kartaa 300 oo kelvin baa soo baxaysa 127 intee weeye 127 waxaa u geysaa 224 baa u geynaysaa marka 400 oo kelvin baa kusoo baxaysa su-aasha xigta calculate waxaa xisaabsan new value qofkaas weyn hita marka la kululeeyo qaacidadii maxay ahayd yani Charles law baa ku shaqeynaysaa v1 oo loo qaybiyey t1 waxay la mid tahay v2 oo loo qaybiyey t2 meel walba ku bedelinaysaa v1 maxay haystay 60 t1 maxay haystay 7 haystay v2 waxaa maad haysan t2 maxay haystay 127 ku bedelinaysaa waa isku dhufanaysaa cross multiplication baa isku dhufanaysaa hadhow waxaa kusoo baxaya degree celsius haddii lagu yiraahdo kelvin u raadina meelahan t1 iyo t2 baa waxaa u qaadanaysaa t1 waxaa u qaadanaysaa 300 t2 na waxaa u qaadanaysaa 400 wixii kusoo baxa waxay noqonayaan kelvin su-aasha question 5 diagramkan wuxuu ku tusinayaa waves being produced in a rope xarig waveka uu soo saaray waa tusinaya modulatorka xarafkeeda u taagan amplitude waa b ba u taagan throatna maxaa u taagan horaan usoo sheegnay d ba u taagan buurtan yarta hoos ka samaysata mintaa waxaa la yirahdaa throat kanna wuxuu noo ahaa kor ka samaysma crest buu noo ahaa su-aasha xigta wavelength wavelengthka muxuu yahay waa kan halkan kugu qoraya 40 centimeter weeye su-aasha xigta the wave travel across the rope 10 meter per second fikradu waxaa xisaabsaa frequency of wave ku leeyahay su-aashan imtixaan walba waa ku timaadaa imtixaan kama waayeysi marka inaad qaacidada iska xifdiyo isku day frequency waxaa lagu helaa speedka loo qaybiyo wavelengthka waa ku bedelanaysaa marka tan loo qaybiyo 20 weeye waa 0.5 su-aasha xigta suggest a reason waxaa sheegtaa sababta why two strontists in base cannot hear the sounds laba yani waxyaabood oo u dhexeeyo shay darbi oo kale ah sababta isku maqleen maxaa weeye unless the use radio wave haddii yani ay isticmaalaan mooye radio wave because maxaa weeye sababta there is nothing out in spaceka waxyaaba yani ka baxaya ma jiraan if the time between hearing timeka u dhexeeya horn of a ship and the echo from the cliff of 4 seconds how far away in the ship from the cliff speed of sound waa 300 baa lagu siiyey halkan maxaa lagu siiyey marka timekii baa lagu siiyey oo 4 second ah speedkiina waa lagu siiyey marka maxaa laga rabaa qaacidadana isticmaalaysaa 2s waxaa la mid tahay v times t marka s waxaa raadinaysaa waxaa weeye waa waxaa lagu yidhi how far inta yani distance baa raadinaysaa distanceka maxaa lagu yidhaha waa 2s waxay la mid tahay v t oo yani speed lagu dhuftay time 2s waxay la mid tahay 330 lagu dhuftay 4 esta markaa kusoo baxaysa dhama walba waxaa u qaybeysaa 330 marka 4 lagu dhufto oo loo qaybiyo 2 waa 660 mitir su-aasha 6aad light diagramku wuxuu tusinayaa 3 primary colors combined together isku geeyey marka saddexda color oo b c d shape waa cyan ama cyan iyo yellow iyo magenta su-aasha xigta why is the general name given to the colors obtained by mixing two primary colors waa secondary colors
macna magaca kale oo loo yaqaano maxaa waye saddexdan waa secondary colors. Name the color produced result mixing three primary colors. Saddexa color oo primary marka la isku qaso kalarka soo baxaya maxaa la dhahaa waa white color waaye. Su-aasha xigta halkan isha lagu siiyey human eye baa lagu siiyey marka name the labeled parts partiyada R iyo S ay ku tusayaan waa maxay. S waxa weeye waa retina, R na waxay ku tusinaysaa oblique nerve. Su-aasha xigta why is the function of the structure B iyo Q structure functionka ay qabtaan ama shaqada ay qabtaan maxay tahay. horta B iyo Q maxay yihiin marka wayna ogaataa. B waxa weeye waa iris, waxaa la yirahdaa Q na maxaa weeye waa crystalline lens. ka shaqada maxay tahay irisku maxay qabataa colored part of eye waa qaybta yani colorka u yeesha isha. crystalline lens ama lens waa iska dhigi kartaa wuxuu soo saaraa proper focal length soo saaraa. su-aasha xigta toddobaad meelaha banaan ereyadana ku bixinaysaa ku habboon. Isotopes waxay leeyihiin same number of proton but different numbers. marka halkan waxaa gelinaysaa yani same numbers of proton ama atomic number. meeshaan neutron dhacdana waxaa dhigi kartaa mass number waa dhigi kartaa laakiin kuguma qorno meeshaas marka proton iyo neutron baa gelinaysaa. Alpha particle is positively charged. Alpha particle mar walba waa positive. One heavy nucleus peaks up from two light one is said to be waxaa la yirahdaa half life. nucleus weyn markuu laba u kala jabo half life baa la yirahdaa. Beta particles waa negative. Beta-na waa negative, waxaa la yirahdaa alpha-na waa positive. labadaas waa kala ogaataa. itixaamada badanaa waa ku imaadaan ayaga haba qaab. su-aasha xigta the half life of 200 gram hadduu yahay radioactivity-kiisu 8 years yahay how many grams will remain in 32 years. su-aashan ayadana 3 itixaan mise 4 itixaan oo ka shaqeynaba waa ku aragteen waa soo laalaabataa ayadana qaacidadaas waana iska xifdidaa. maxaa lagu weydiiyey remaining number baa lagu weydiiyey. remaining number waxaa lagu helaa yani no oo maxay numberka lagu siiyey ah ama sample numberka uu ka bilowdo lagu dhuftay half oo lagu dhuftay total time oo loo qeybiyey half life. marka waa ku bedelanaysaa sample numberka maxaa haystaa 200 gram baa haystaa lagu dhuftay half oo lagu dhuftay total time maxaa haystaa 32 oo loo qeybiyey 8 oo ah half life-ka waa 8 years ah. markaas waxaa kuu soo baxaya in su-aasha sideedaad isku aadi waxyaabahan erayadan iyo kuwa lama yani description-kooda. angular velocity maxaa weeye wuxuu ku aadan yahay waa as a unit of rad per second. angular acceleration-na waa the rate of change in angular velocity isbedel ku dhacaya weye. waxyaabaha marka waa iska fudud yihiin nambaradaas isku aadinaysaa. su-aasha xigta su-aashan 20 waa ku aragteen su-aashan su-aal lamid ah 2020 hadda waxaa lagu weydiiyey markaas centripetal force masskiis waxaa lagu siiyey 0.5 kg. waxaa kaloo lagu siiyey length 2 mitir ah. marka waxaa lagu weydiiyey waxaa kaloo lagu siiyey velocity oo 10 meter per second. marka waxaa laga rabaa centripetal force. maxaa lagu helaa mass oo lagu dhuftay v square oo velocity square oo loo qeybiyey r. marka waa haystaa ku bedelo 25 kuu soo baxay 0.5 lagu dhuftay 10 square garaysan oo loo qeybiyey 2. 0.5 lagu dhuftay yani 10 square garaysan waa 100 soo ma 0.5 ku dhufo waa 50 laba u qeyb waa 25. su-aasha xigta sida difference-ka u dhexeeya distance and displacement-ga sheeg. labadaas su'aal mid baa kaga jawaabi kartaa. distance-ku waa scalar quantity, displacement-kuna waa vector quantity. intaas ku fudud. hadaa aragtid waxaa kaloo dhigi kartaa distance-ku waa wuxuu ku tusinayaa how much ground is object has covered. displacement wuxuu ku tusinayaa how far out of place of an object is. su-aasha sagaalaad su-aasha waxay ku leedahay diagram-ka wuxuu ku tusinayaa force acting in a book. forces yani book saa hadda ka hor inii sheegay imtixaanka 2018 iyo 2020 aad bay isugu soo dhow yihiin waxyaaba yar ay ku kala duwan yihiin. marka su-aashan su-aal u soo dhowaa waxaa ku aragteen 20 haddaad taas soo fahamtay tana waa fahmaysaa. marka force-yadan kala sheeg baa lagu yiri. force-ka B muxuu ku tusinayaa? force-ka B wuxuu ku tusinayaa waa friction force.
kan kor u baxayo ana waxa waaye waa normal force, kan hoos soo baxaya maxaa la gravitational force. si haddii lagu weydiiyo ayada laftarkeeda maxaa samaynaysaa, si laftarkeeda waa inaan garan ka dhaca xagaa kusoo marteen. su-aashan xigta oo sidaas waxay ku noqonaysaa weight force ama culays kelijeedii. su-aashan waxaa lagu yiri objecta weightkiisu wuxuu yahay 20 newton when is fully submitted water its weight wuxuu noqonayaa 15. marka waxaa soo maray abthrustiga maxaa lagu heli jiray, waxaa lagu heli jiray weightka buoyancy force-ka ama weightkaas lagu siiyo 20 baa ka jaraysaa kan dambe oo soo baxay 15 baa ka jaraysaa marka 5 baa kuu soo baxaya. waxaa kaloo water displaced weightka water displaced maxaa lagu helaa water displacedka weightkeeda waxaa lagu heli jiray wuxuu la mid ahaa upthrust force kula mid ahaa marka 5 newton baa leedahay. su-aasha calculate mass of object masska xisaabi. masska maxaa lagu helaa weightka oo loo qaybiyey gravity-ga. weight maxaa haystaa gravity waa lagu siiyey g waxaa lagu siiyey 10 newton per kg marka 20 oo haysatay masska waa kana 20 baa haysatay newton oo loo qaybiyey waa leedahay 10 oo ah gravity-ga. gravity-ga haddaan lagu siin xataa mar walba 10 buu taagan yahay marka n iyo n baa isla baxaya waxaa soo baxaya 2 kg baa soo baxaya. su-aasha xigta oo u dambeysa find the weight-ka xisaabi. halkan waxaa lagu siiyey w-dan waxaa lagu siiyey su-aashan aad bay u fududaa. waxaa samaynaysaa halkan w waxaa lagu siiyey waa maxaa la yidhaahdo laguma siin ayada lagaa rabaa distancekeeda waxaa lagu siiyey waa 5 halkan distancekeeda waa lagu siiyey kana waa lagu siiyey yani weightkii marka 5 lagu dhuftay weight waxay la mid tahay 2 lagu dhuftay 20 baa leedahay. labadana waa isku dhufanaysaa labadana waa isku dhufanaysaa tan walba waxaa qaybinaysaa 5 marka 20 marka lagu dhufto waa 40 40 marka 5 loo qaybiyana waa 8. taxaa guud u sameeytina ogolno. qaybta koowaad waa iska dulmarnaa insha allah iska fudud yihiin. su-aasha koowaad waxaa lagu yiri sambalkan kee u taagan thermistor waa lambar b. tan labaad waxaa lagu yiri reading thermometerkan sheeg waa 28 see ku garata halkan waa 20 soo maaha 20 halkan xariijintan yartahay oo dheer ayadana waa 5 bay ku tusinaysaa 25 meeshuu ku egyahay fiiri marka 20 iyo 5 wuxuu dhaafay 3 u geeyo 28 marka saas ku noqotay. halkan waxaa lagu tuuray medical fish tanks baa waxaa lagu buuxiyey same level of water midna waa wuxuu ku jiraa biyo caadi iyo fresh water midna waa sea water keebaa pressure badan pressureka u badan heriye pressureka u badan waa sea water ka leh oo waliba kan hoose oo d ah. su-aashan xigta gaarigan wuxuu ku soconayaa horizontal force ku soconayaa marka saddexda force waa lagu siiyey air iyo friction iyo driving. ka waxaa lagu yiri combination keebaa ku tusaya kan saxda ah waxaa ku tusinaya waa c sababta maxay tahay driving force mar walba wuxuu la mid yahay air force iyo friction force la isku geeyey marka driving force waa 1000 labadan air force iyo friction force marka la isku geeyo 1000 bay isku noqonayaan lambar c baa sax. su-aasha xigta saddexdan butol wax weight isku mid ay leeyihiin marka waxaa lagu yiri keebaa pressure ugu badan leh waxaa la wada lambar d sababtoo ah pressure mar walba kor aado waa siyaadaya. su-aashan xigta waxaa lagu yiri student Al-Furqan secondary school waxay investigation ku sameynaya how current resistance varies voltage currency resistance iyo voltage si u kala duwan yihiin marka waxay ku sameeyeen graafkana ku sameeyeen. su-aasha weydiiyay maxay tahay potential difference for voltage current for voltage marka haysano voltage markuu 4 yahay resistance intee noqonaya current intee noqonaya markuu xaggan yahay kana waa kana sorry markuu voltage 4 yahay xaguu ku aadamaya waa kana waa 0.2 ku aadamaya. su-aasha xigta diagramkan wuxuu ku tusinayaa transfer wave frequency wavekan frequency maxaa lagu helaa frequency waxaa lagu helaa 1 loo qaybiyey time 1ka muxuu taagan yahay waa 1 cycle intee cycle baa meesha haystaa 1 kow 2 iyo bar 2.5 marka 2.5
cycle oo loo qeybiyey time oo ah 5 second baa haystaa 2.5 5 loo qeybiyana waa 0.5 saas waxaa kusoo baxday su-aashan xigta wadadan waxay leedahay negative charge bay leedahay marka kuwan soo socda keebaa sax which diagram shows charge distribution of metal sphere waa maadaama ay wadadu ay tahay negative charge yani ilaa waxa lagu yiri negative iyo negative way kala dadaan positive way kala dadaan marka wadooyinkan keebaa saxa waxa saxa keebaa yani saxa waa d baa saxa sababtoo positive leedahay su-aasha xigta energy that earth receives from the sun waxaa yidhahdaa solar energy waa iska yaqaanaa kuwan soo socda keebaa ku siiya mashiinada third class levelka waa number c qaybtan labaad aan gudubno wave buu ka hadlayaa behavior of waves bay ku tusinayaa saddexdan sawir marka saddexdan sawir a b c waxay ku kala tusayaan a waa reflection b na waa diffraction c na waa refraction su-aasha xigta radiationka a iyo d iyo b sheeg radiationka markaas si yani u kala horeeyaan baa loo kala hormariyay radio waves baa xagga ugu xiga waxaa ku xiga microwave oo b ah muxuu noqonayaa marka halkan waxaa lagu siiyay gamma rate baa lagu siiyay halka x-ray baa ku xigo x-ray bay noqonaysaa su'aalahan socda waxaa la stationskan keebaa waxaa lagu yiri transmit waves smallest wavelength ugu yar keebaa transmit karaynaya waa number 4 waa station 5 su-aasha xigta 5 the wavelength of wave su-aashan ayadana ma walba taxamada ku timaadaa haddana waa kusoo marnay imtixaanka hore hadda waxaa lagu weydiinayay wavelength baa hadda lagu weydiiyey awalna waxaa lagu soo weydiiyey frequency baa lagu weydiiyey imtixaanna waxaa lagu weydiinayaa frequency imtixaanna wavelength baa lagu weydiinayaa marka qaacidada baana iska xifdidaa wavelength maxaa lagu helaa speedka loo qeybiyey velocity-ga waa ku bedelanaysaa marka su-aashan xigta waxaa lagu yiri Faadumo cyclist from her house supermarketkii u socotaa gurigeeda aadaysaa marka graafkan baa lagu tusay waxaa la yiri speedkeesu isku bedelayo marka su-aasha waxaa la yiri graph shows wuxuu ku tusinayaa Faadumo acceleration waxaa la yiraahdaa waa yani markuu kor uu yani acceleration kor aado marka acceleration waxay samaysay during the first kan fiir marka first secondada ugu horeeya yani waa secondada waa first waxay ka bilaabantay halkan ilaa halkan marka boqolka second ugu horeeya waxay samaysay acceleration waa marka uu soo dhaco waa c to d waa intee marka time intee noqonaya waa 150 ilaa 300 waa 50 marka 50 second bay waxay samaysay acceleration speedkeeda b to c muxuu ahaa speedka t waa speedka xaggan dhankaana speedka ku ah moogtahay speedka meesha ku aadan yahay fiirnaysaa marka waa 600 iyo 400 dhexdooda waa 500 marka 500 meter per second distance waxaa xisaabaysaa Faadumo ay ka lugeysay 100 sanka ka ugu horeeya waa ilaa halkaa weeye marka waa area another curve waxaa lagu helaa waa half loo qeybiyey b lagu dhuftay h su-aashan waxaa kusoo marteen 17 su-aashan su-aal la mid ah marka b maxaa haystaa waa 100 lagu dhuftay 500 loo qeybiyey half lagu dhuftay half 2500 baa kusoo baxaya qaacidadaas ka xigta marka su-aasha xigta diagramka wuxuu ku tusinayaa geostationary satellite orbiting around the earth su-aalaha ma laga weydiiyey foreska uu soo saaraya centripetal foreska waa maxay satellite-ka waa gravitational attraction ama gravitational force baa dhihi kartaa is larger or smaller centripetal force required if yani centripetal force large mise small baa loo baahan yahay marka satellite-ku traverse fast xoog uu ku dhawaaqo waa larger loo baahan yahay radius of orbit increase markuu radiusku yaraado centripetal force increase uu siyaadaa marka labadaba waa larger bay noqonayaan su-aasha xigta satellite baa wuxuu ku dhaqaaqayaa circular path radiuskiisu 600 mitir uu yahay but linear speedka waa maxay calculate waxaa xisaabtaa centripetal acceleration imtixaanka haddana waa kusoo madheen centripetal force waa soo madheen hadda centripetal acceleration baa laga rabaa waxaa lagu helaa v ama velocity square loo qeybiyey radiuska oo 600 ah meesha maktuuga aan ka dhigay the v square loo qeybiyey r weeye halkaas su-aasha xigta oo saddexaad
erayadan meelaha bannaan ku buuxi. Produced velocity and mass wax soo saara maxaa la lahaa momentum baa la lahaa. Momentum waxa weeye waa produced force perpendicular distance, force perpendicular buu soo saaraa. Energy maxaa weeye waa resistance objectiga uu yani motionkiisa ku bedelo. Marka motionka yani dhaqaaqa resistance uu sameeyo markuu walaxda ay bedelayso motionkeeda ama dhaqaaqeeda ay bedelayso. Su-aashan waxaa lagu weydiiyey momentumka xisaabi. Momentum waxaa lagu helaa masska lagu dhuftay velocity-ga. mass waxaa haystaa 120 waxaa ku dhufataa 3 oo ah speedka ama velocity-ga. Su-aashan waxaa lagu yidhi shipkan wuxuu ku tusinayaa c before c in the ship is floating, wuxuu dul sabaynayaa on the water and is not moving mana dhaqaaqiyo. Su-aasha lagu weydiiyey maxay tahay state Archimedes principle of floating and sinking. Ninka Archimedes la yiraahdo principle-kii ama sharciga uu dejiyay floating-ka iyo sinking-ka waxaa dul sabeeya iyo waxaa quusa sharcigiisa waa sheegaysaa. Waxa weeye if buoyancy force is greater than object haddii ka weyn tahay weight, the object will rise to the surface and float. Yani hadduu buoyancy force uu weyn yahay weightka walaxda uu ka weyn yahay walaxda way dul sabeynaysaa. Su-aasha xigta halkan waxaa lagu siiyey weightka waxaa lagu siiyey 10,000. Buoyancy force waa maxay? Horaan usoo sheegnay buoyancy force-ka iyo mar walba weight-ku waa isku mid. Rukun bay ku noqonaysaa 1 Newton. Explain waxaa sharaxdaa why does ship float? Sababta uu ship uu yani u dul sabeynayo. Nail-ka ama cididana ay u quusto. Nail-ku waxay u quustaa because it has greater density than weight than water. Density-geeda ka badan. Walax walba markuu yani walaxda markii density-geeda uu ka badan yahay biyaha bay quustaa. Kasaa darteed bay u quustay. Waxaa la yiraahdo shipkuna muxuu leeyahay waa less density uu leeyahay sababtoo saa darteed floating buu sameeyey. Su-aasha xigta electromagnetic bay ka hadlaysaa. Erayadan waa ku buuxinaysaa meelaha bannaan. Which one of electrical devices above is outer device which produce sound? Kee soo saara marka wave-ka weeye. Glows when small current flows into a lighting emitting diode. LED baa kusoo marteen iyadoo yani LED loo soo gaabinay imtixaanka haddana soo dhaafay. Has lower resistance when heated. Resistance kee buu yaraadaa waa thermistor-ka. How lower resistance one light shines waa light dependent resistance ama LDR. Su-aashan xigta diagramkan x y waxay ku tusinayaan symbol for two logic gates. Marka which symbol kee wuxuu ku tusinayaa OR gate. Mid walba sawirkiisa waa inaa garanaysaa. waa y baa ku tusinaya. Truth table-ka OR gate dhamaystir baa lagu dhahaa. OR gate-ku hal mar buu damaa. Waa marka labaduba ay dansan yihiin. Horaa usoo maray 2020 ku jirtaa su-aashan OR gate-ka. Su-aasha xigta highlight the importance of electronics to the real life using relevant examples from the local context. Electronic devices have waxay leeyihiin become an important waxay u leeyihiin part of our day-to-day life. It has become difficult for us to do work without using electronic device. Tusaale maxaa ka mid ah calculator, telephones baa ka mid ah. Su-aasha xigta oo shanaad light bay ka hadlaysaa. State waxaa sheegtaa types of lens convex or concave. Concave miyaa mise waa convex? Waa concave waa aragtaa. Su-aasha xigta image-ka real miyaa mise virtual image. Su-aasha xigta an object is placed. Object waxaa laga 15 cm from the convex lens. Length-kina waa 10 cm. Find position of image-ka sheeg. Position of image maxaa lagu helaa? Waxaa lagu helaa waxaa la yiraahdaa hal la hoos dhigay object place-kiisa. 15 oo loo geeyay hal la hoos dhigay length-ka. Marka soo waxaa kusoo baxaya hal la hoos dhigay 30. Marka hal la hoos dhigay 10 baa kusoo baxaya oo la mid ah 30. Su-aasha xigta two practical application of lens. Lensiga two applicationadooda sheeg waa concave lens iyo convex lens. Length waa eri waa lens weeye.
colorka formid samaysmayo two primary colors red iyo green markay isku tagaan overlapping markay sameeyaan yellow baa samaysma. Su'aashan waxaa lagu yiri explain why the ray entering the glass A is not bent sababtu aysan u ahayn waa maxay sababtu maxay tahay in left hand case the incoming ray is perpendicular waxay perpendicular u tahay surface-ka sidaa darteed reflection ma sameynayso. Su'aasha lixaad electricity ka hadlaysaa. Su'aasha marka waxaa lagu yiri A iyo B iyo D maxay ku tusinayaan. A waa aragtaa waa switchkii meesha daaradamihii weeye. B maxay ku tusinaysaa waa ammeter. D-na waxa waaye waa voltmeter. calaamadaas waa soo maraya voltmeterka iyadoo la leeyahay yani teebaa voltmeter calaamadahan soo socda. Su'aasha xigta total resistance R1 iyo R2 xisaabi. waxaa lagu helaa hal loos dhigay R1 oo loo geeyay hal loos dhigay R2. qaacidaas ku bedelinaysa to resistance oo ku soo baxay. Su'aasha xigta total current flowing through both valve when A is closed. markay yani oo yani switch markuu yani closed u xiran yahay ama u daaran yahay ama aan la goyn total resistance current resistance waxaa lagu helaa voltage resistance loo qaybiyay 6 ampere. Su'aasha maxaa lagu yiri to component C circuit symbol of fuse explain waxaa sharaxdaa how the fuse prevent to large current in circuit. Su'aasha 2020 baa ku soo marteen. waxaa lagu yiri waxaa sharaxdaa fuse-ku si u ilaaliyo large current badan inay socoto. marka fuse-ka awal waxaa soo mareen waxaa lagu yiri waxaa sababta waxaa sheegtaa yani fuse-ka shaqadiisa sheeg. shaqadiisa maxay ahayd inuu yani gubashada u ilaaliyo soma. hadda waxaa lagu yiri waxaa sharaxdaa fuse-ka sabab sida uu ilaaliyo current-ga. it melts oo yani shaqadii uu awal qabanayay baa waxaa lagu yiri sababta qaabka uu qabto sharax. it melts wuu milmaa breaks wuu jabaa wuxuu jibiyaa ama gooyaa circuit-ka and prevent wuxuu ilaaliyaa cause of fire dab inuu dhasho. prevent cause of fire waxa weeye waa shaqada uu qabto si uu qabtana waxa weeye it melts and breaks the circuit. su'aasha xigta in main circuit fuse is placed waxaa la dhigaa live wire-ka lagu xiraa meesha lagu xiri lahaa neutral wire-ka. sababtu maxay tahay because sababtu maxay tahay live wire-ku wuxuu qaadaa alternative current uu qaadaa yani current talantaaliya. su'aashan waxaa lagu yiri su'aashan 2017 miyaan dhahaa 17 baa kusoo mareen su'aashan su'aal lamid ah oo la raadinayo electric fire waxaa la yiraahdo costiga ilaamada la isticmaalay. costiga maxaa lagu helaa B oo lagu dhuftay T timeka oo loo qaybiyey oo lagu dhuftay. marka timeka maxaa haystaa weight maxaa work maxaa haystaa waa 3kW lagu dhuftay 5 waxay la mid tahay W waxay la mid tahay 5. marka costiga maxaa lagu helaa costiga waxaa lagu helayaa W oo lagu dhuftay BC. W maxaa haystaa 15 BC na waa 10 baa haystaa oo aan costiga lagu siiyey yani BC dan waa costiga lagu siiyo halkaas. marka hore maxaa sameynaysaa waxaa la yiraahdo 3 kilowatt-kan 5 hours-kan waxaa u bedelaysaa kilowatt 15 kilowatt wey 3-gana waxaa ku dhufanaysaa 5-kan markaas waxaa qaacidada isticmaalada cost waxaa lagu helaa W lagu dhuftay BC. su'aasha 7 halkan waxaa lagu yiri su'aashan laba imtixaan 3 imtixaan yaa ku aragteen imtixaan walba ku timaadaa waa half life radioactivity-ga waxaa lagu yiri waxaa sheegtaa half life-kiisa. half life maxaa weeye waa 80 buu gaaray soo ma 80ka laba u qaybinaysa waa 40 xagee ku aadantaa 2 bay ku aadantaa waa 2 days weeye. marka 40 buu sameynayaa in 2 days half life waa 40 in 2 days. su'aasha maxay tahay xigta activity-ga of sample after 6 days 6 beri kadib intee buu noqonayaa. 10 days kadib fiir tan meesha ku aadan tahay fiiraysaa tan bay ku aadan
6 days fiiri 6 days marka waa 10 activity bay noqonaysaa su-aasha xigta waa laba u siqaymaysa afartan laba u qaybi waa 20 ay noqonaysaa 20 laba u qaybi 6 beri marka waxay tegaysaa 10 bay tegaysaa su-aasha xigta su-aashan marka waxaa lagu yiri radioactivity markuu yahay uraniumku dhikiisu 200 uu yahay thoriumku wuxuu noqonayaa 234 isformid baa samaysmaya marka waxaa lagu yiri asuga adoo ka soo qaadaya one particle simit hal particle baa la soo saaray what type of particle simit particle kee la soo saari karaa waxaa la soo saari karaa waa alpha particle sababtoo ah waxaa la yiraahdo atomic numberkii Afrika goysaa marka 208 bay ahayd 234 bay noqotay darteed waa alpha bas la soo tidin karaa related charge of particle alpha particle maxay ahayd brass bay ahayd sidoo kale waxaa lagu tusay thickness of monitoring system of beta radiation su'aalan baa laga weydiiyey why beta is used maxaa loogu isticmaalaa radan alpha or gamma emitter maxaa beta loo isticmaali waayey alpha iyo gamma sababtoo ah penetrated powerka beta ay leedahay waa neutral according marka loo eego alpha iyo gamma alpha penetrated powerkeeda aad buu badnaa gammana aad buu yaraa sorry gammada penetrated powerkeeda aad buu badnaa alphadana aad buu yaraa marka waxaa la yidhaha betadu waa dhexdhexaad bay ahayd marka darteed waa suitable iyada ku habboon which type of radiation keebaa wuxuu leeyahay least penetrating waa alpha particle deflected electric field keebaa waa gamma negative charge keebaa waa beta marka yani calaamadaha ay leeyihiin saddexdaas alpha gamma beta midooba waa iska xifdidaa imtixaan walba mid waxaa kaaga imaanaya waxbaa laga weydiinaya maas baa laga weydiin karaa waxaa la yidhi negative keebaa positive keebaa keebaa penetrationkiisu uu yaryahay keebuu dhexdhexaad yahay keebuu badan yahay waxyaabahaas waa iska qabataa su-aashan waxaa lagu yiri teacher baa wuxuu sameeyey small transformer marka bar transformerka way samaysaa ironku maxaa la dhahaa coil la dhahaa coilku maxay samaysaa coil bay samaysaa su-aasha xigta reasonka waxaa sheegtaa why coil is used transform maxaa loogu isticmaalaa coilka waxaa to transfer power effectively from primary coil to secondary coil baa loogu isticmaalaa su-aasha xigta number of timeska waxaa lagu siiyey number of timeska wuxuu ka secondary wuxuu ka yaryahay number of timeska primary marka maxaa soo baxaya step down baa soo baxaya waa soo sheegnay step downku primary baa yani badan oo secondary baa yar step upkana primary yar secondary badan yani step downku waxa weeye waa waxay yareynaysaa yani electronic waxay yareynaysaa current bay yareynaysaa step upkuna way badinaysaa weeye su-aasha xigta transformerka JKL iyo MK baa step up ah step up maxaa step upka waxa weeye wuxuu sameeyaa yani step up waxa weeye waa waxaa la yiraahdo intuu voltage helayo baa waxaa intuu voltage helayo intuu bixinayaa badan sadarteed J 2500 baa soo gashay 25,000 baa soo gashay markaas wuxuu bixiyay 400 oo kun oo voltage buu kuwa kala siiyey sadarteed waa step up way su-aasha xigta why a step up transformer is used part of national grid maxaa loogu isticmaalaa to increase voltage inuu yani badiyo currentigana uu yareeyo su-aasha xigta number waxaa lagu yiri explain why number of clips attached on nail A are more than number of clips nail B nail A nail B maxay u badan tahay nail B du maxay yani u yar tahay oo aad u badan tahay sababta maxay tahay magnetic field generated by solenoid is proportional to number of times proportional kadib mid bato kan kale u yaraanaya su-aasha sagaalaad heat waxaa lagu yiri state police law sharcigiisii baa sheegaysaa awal waxaan soo marnay Charles Law halkan waxa lagu weydiiyey police law muxuu sheegay pressure exerted by gas is inversely proportional waxay inversely proportional ku tahay to volume occupied by a physical force
marka qaacidadiisa waxaa la weydiiyey su-aashan define pressure qeex waa physical force exerted on object oo la yiraahdaa pressureka. su-aasha xigta meeshan waxaa lagu yiri new volume-ka cusub oo imaanaya sheeg. waxaa lagu siiyey pressure 1 iyo pressure 2 iyo volume 1 baa lagu siiyey. marka qaacidadaas waa B1 lagu dhuftay V1 waxay la mid tahay B2 lagu dhuftay V2. V2 maxaa lagu yeelay halka B1 oo lagu dhuftay V1 oo loo qaybiyey B2 kuma bedelanaysa 60 centimeter square oo kusoo baxaya. su-aasha xigta heatka from sun to solar qoraxda ka imaanaya solarka soo aadaya maxaa la radiation baa la dhahaa. from hot water biyaha kulul pipes heatka ka imaanaya cold water ka aadaya maxaa la dhahaa processka la isticmaalo maxaa weeye conduction baa la yiraahdaa. su-aasha waa su-aasha mar walba kugu soo laalaabata ha ilaawin taa walba kugu imaataa afartan soo marnay iyo kan ku shana oo ku aragteen. waxaa lagu weydiiyey quantity of heat baa lagu weydiiyey waxaa lagu siiyey maski baa lagu siiyey 20 ah. waxaa kaloo lagu siiyey specific heat oo ah 4200. waxaa kaloo lagu siiyey temperature difference maxaa weeye waa 20 iyo 50 soo maaha 30 baa kusoo baxay 50 marka jir 20 waa 30 marka saas ugu bedelanaysaa halkaasoo nagu dhamaaday.